وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم دع ما ادعته النصارى في نبيهم. kulanti habboon daawadayaal idilkiinba kusoo dhowaada warbixin kooban oo ku saabsan sooyaalka qaarigii afrikaanka ahaa ee sanadihii dambe ugu codka macaanaa allaha u naxariistay sheekh nuureyn maxamed sadiiq. والله يا جماعة كان كل يوم أحد حاب نستقبل أكثر من 7 و8 عشان يدخلوا الإسلام. بعض من الناس المصلين بيجي من برا يقول لي يا أخي والله الناس بيتعصروا في الحيط يستمعوا للقرآن، ما دارين يخشوا الجامع لكن من بعيد يقعدوا على سور المسجد. بعض منهم القرآن بيحرفوا كثير بيجي يدخل عشان يعلن الإسلام وهم عندهم حياة كثيرة جدا. القرآن تأثيره أسرع من إيش؟ سريع جدا أصلا يعني. بس فقط ضاير النية الخالصة لله سبحانه وتعالى. baraha bulshada waxay horseedeen inay soo nooleeyaan habka quraan akhrinta ee dadka Afrikaanka ah kaas oo ka mid ahaan jiray dhaqamada iyo caadooyinka dadka ku nool bariga dhexe sida uu ku waramayo wariye Ismaaciil Kushkush oo ka sheekeynaya mid ka mid ah culimada sida weyn loo jecel yahay marka ay akhrinayaan Quraanka Kariimka. Sheekh Nuureyn Maxamed Sadiiq wuxuu lahaa cod aad u macaan marka uu akhrinayo Quraanka wuxuuna ahaa qaari si weyn looga yaqaanay dunida muslimka. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. nuureyn maxamed sadiiq wuxuu bishii November ee sanadkii la soo dhaafay ku dhintay shil gaari da'diisu waxay ahayd 38 sano jir. geeridiisana si weyn ayaa looga naxay waxaana ka tacsiyeeyay dadweyne badan laga soo bilaabo Pakistan ilaa Mareykanka. waxaan weynay mid ka mid ah dadkii ugu codka macaanaa waqtigeena waxaa sidaas barta Twitterka ku soo qoray Imaam Cumar Suleymaan oo ku nool gobolka Texas ee dalka Mareykanka. رحاب الله على الفلاح. Hindi Maki oo ah qabiir haysta dhalashada Mareykanka iyo Suudaan ayaa sheegay inay adag tahay inuu sharaxaad ka bixiyo tayada Sheekh Nuureyn allaha u naxariistay. sida laga soo xigtay dabcan nin taariikhyahan ah waxa uu sheegayaa in qaab akhrinta Quraanka cibaadada iyo xadrooyinka dadka Afrikaanka ee ku nool galbeedka Afrika ay isaga eg yihiin dadka ku nool dalalka saxaraha ka hooseeya Suudaan iyo Soomaaliya waxayna arintani qayb ka qaadatay in la sameeyo luuq gaar ah oo lagu akhriyo Quraanka Kariimka. sida sunnada ah Quraanka Kariimka waa in lagu akhriyaa cod macaan sida uu Nabi Muhammad inoo sheegay Quraanka ku akhriya cod macaan. goobo kala duwan iyo qaabab kala duwan ayaa inta badan loo akhriyaa Quraanka taasoo dadyow kala duwan ay ku xiran yihiin oo ay jecel yihiin. Quraan akhrinta waa lagu diirsadaa markasta gaar ahaan marka laga akhrinayo goobaha lagu qabanayo muxaadarada iyo salaada taraawiixda ee bisha barakaysan ee Ramadaan. xitaa waxaa jira tartamo caalami ah oo lagu soo bandhigo akhrinta Quraanka Kariimka. waxaana jira qiraa'ooyin kala duwan oo lagu akhriyo qowlkii Eebbe. waxaa lagu kala duwan yahay qaab akhrinta iyo codka marka la eego dhaqanka, deegaanka iyo taariikhda guud ahaan dunida muslimka. qaabka uu Nuureyn u akhrin jiray Quraanka iyo geeridii ku timi waxay sababeen in lagu baraarugo qaabka waagii hore ay Quraanka u akhrin jireen dadka Afrikaanka ah. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتريهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. wuxuu Quraanka ku soo bartay malcamad ku taalay tuuladii uu ku soo barbaaray ee lagu magacaabo
Al-Faraab ee dhacda galbeedka magaalada caasimadda ah ee Khartoum bartamihii sagaashamaadkii. Markii dambe wuxuu u wareegay magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan. Wuxuu dadka salaada ku tujin jiray masaajida dhowr ah oo ku yaala caasimadda. Dadka inta badan waxay jeclaayeen qaabka uu Quraanka u akhriyo sheekha. سبحان الله، يعني أنا نورين مما عرفته والناس بتحبه شديد. الشيخ نورين قال له والله سبحان الله، قال لي شوف فح صغير لكن يجبرك إنك تحترمه. يعني شاف فيها رؤية عجيبة يعني وبشر بها كأنها بشارة بالنسبة له هو. فرأى رؤيا إنه في رجل جهداه مصحف. أنا بس انكبيت من فوق بس مسكت وقعدت أبكي، يعني حتى نورين ده من شدة الخلع أجلسني وقبلني على راسي. خرج معنا ويحمل ابنته الصغيرة دي إلا بعراقي حافي الأقدام، يعني كأنه هو مودع فينا. Sheekha ayaa si caan baxay kadib markii muuqaaladiisa lagu baahiyay baraha bulshada, gaar ahaan aaladda YouTube-ka. Codka Sheekh Nuureyn wuxuu u eg yahay luuqda muslimiinta ku nool gobollada saxaraha ka hooseeya iyo geeska Afrika. Waa luuqda deegaankii aan ku soo koray. Wuxuu u eg yahay luuqda dadka reer Suudaan. Waxaa sidaasi yiri Alseyn Maxamed Axmed oo isagana ka mid ah culimada caanka ku ah akhrinta Quraanka Kariimka. وإني لأفرح بالعزيز إذا سأل ويسر قلبي إن تواصل أو وصل وأظل أذكر رائعات حروفه مهما تباعدنا وطال بنا الأجل. هذه أحاديث المودة بيننا، هذه أحاديث المودة بيننا ويخونني التعبير في باقي الجمل، فإذا قصرت فسامحوني أحبتي فإني معرض للمشاغل والزلل، فلتذكروني بالدعاء فحبكم أودعته بين الحنايا والمقل. أحبكم نورين محمد الصديق. Imaam Cumar Jabiye oo ku sugan deegaanka dabcan lagu magacaabo Columbia ee magaalada Washington ee dalka Mareykanka wuxuu ka soo baxay jaamacadda Madiina ee Sacuudiga. Wuxuu ku dhashay dalka Sierra Leone. Waxaa markii ugu horeysay Quraanka soo baray culimo ku sugan dalalka Senegal iyo Gambia. Waa halka aan ku soo bartay qiraa'ooyinka kala duwan, ayuu yiri Imaam Cumar. Sanadihii u dambeeyay qiraa'ooyinka culimada bariga dhexe ayaa ku baahay dhul badan oo ay ka mid tahay Afrika, gaar ahaan dadka ku nool magaalooyinka. Dadka waxay Quraanka heli karaan isaga oo duuban oo lagu baahiyo raadiyaasha, waxaana dunida ku baahiya hay-ado ku kala sugan Masar iyo Sacuudi Carabiya. Ardayda wax ka soo bartay jaamacadda Al-Azhar ee Masar iyo jaamacadda Madiina ee Sacuudiga iyo saameynta hay-adaha ay maalgeliyaan Khaliijka ay ku yeesheen arrintaasi waxay horseedeen in la baahiyo qaabka Quraanka looga akhriyo bariga dhexe. Balse internetka iyo baraha bulshada waxay horseedeen soo nooleynta habkii akhrintii hore ee Quraanka iyo in da'yarta ay daneeyaan hab akhrintii hore ee Quraanka Kariimka qowlkii Eebe. Quraanka waxaa lagu akhriyaa ilaa 7 qiro oo kala duwan. Qiraa'ada ugu caansan waa Xafsa oo inta badan ka dhaqan gashay dabcan dhulkii ay maamuli jireen Cusmaaniyiinta. Waxaana markii dambe lagu baahiyay musxafka uu ku qoran yahay qiraa'ada Xafsa guud ahaan dunida muslimka, kaas oo lagu soo daabacay magaalooyinka Al-Qaahira iyo Maka. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. qaybo ka mid ah dunida muslimka gaar ahaan dhulka miyiga ee ku yaala Afrika waxaa Quraanka lagu akhriyaa dabcan sida ka muuqata qiraa'ada lagu magacaabo Al-Durri oo caan ka ah Suudaan, taas oo inta badan uu Quraanka ku akhrin jiray Sheekh Nuureyn Maxamed Sadiiq, Allah u naxariistee. waad ku mahadsantihiin daawashada warbixintan. Waxaan rajaynaynaa inaad gaarsiin doontaan asxaabta kale
si iyaguna ay macluumaad iyo xogo dheeraad ah uga helaan halkan. هون يا كريم للقيود حلل غير أصل هناك أنا ما في لي حلل يا حبيب الله يا من للتقى والغفران أهل صلي والسلام.